inkastoon hore ugu dhawaaqay inaan ka fariistay siyaasadda haddana markaan qiimeeyey waayaha dalka iyo dadkaygu marayaan iyo in wacyiga bulshadu soo korayo tixgeliyana dareenka dadkaygu ii hayo waxaa khasab igu noqotay inaan ku soo laabto masraxa siyaasadda waxaana aniga iyo aqoon-yahan kale oo ka faa'iidaysanaya fursaddan oo aan in badan sugaynay go'aansanay inaan urur siyaasadeed la magac baxay barwaaqo dhowaan ka daafuri doono gobollada dalka si gooni ah muddo badanna aan ku howlanayn sidii uu u noqon lahaa mid si mug leh uga dhex muuqan lahaayeen dhammaan bulshaweynta reer Soomaaliland lagana qodax tiray xeerkiisa inuu noqdo mid shakhsi iyo qabiil leeyihiin higsanayana isbedel dhab ah oo ka fog yooyootanka siyaasadeed wabilaahi tawfiiq gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Gaboos saxafadeedkan maantay wuxuu daaran yahay baryahan waxaa dalka ka taagan maaragtay buran siyaasadeed ee la xiriira ururada siyaasadda doorashada madaxtooyada iyo arrimaha marka inaan arrimaha dah ka furo wixii ay nala noqotay annaga bismillaahir rahmaanir rahiim jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka hana qaaday tan iyo bartamihii 2000 nidaamka tala wadaaga iyo hanaanka xisbiyada badan si loo hiigsado horumar dhaqaale iyo xasilooni siyaasadeed sida ku qeexan dastuurkeenu waxa uu damaanad qaaday in afti dadweyne mooyaane aanay golayaasha qaranku waxba ka bedeli karin nuxurka qodobada khuseeya xuquuqda asaasiga ee muwaadin sida inay urur furtaan siyaasadeed in la doorto waxna doortaan taasoo dhaqangelinteedu ay mudnaanta koowaad ka leedahay qodob kastoo kale ee dastuurka ku xardhan haddaba si ay muwaadiniintu u gudan karaan si nabadgelyo leh xuquuqdooda siyaasadeed si waafaqsan dastuurka fursadna loo siiyo cid kasta oo yeelan karta damac siyaasadeed dhiig cusubna loogu shubi karo hoggaanka dalka waxa ay dhaqan gelisay xukuumaddii madaxweyne Cigaal Allah u naxariistee xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadeed xeer 14/2000 kaasoo yoolku ahaa in la isbarkiyo nidaamka xisbiyada badan oo lagu xaqiijinayo marxaladda koowaad oo ah in la qabto doorasho sal ballaaran oo ay ku tartamayaan ururada siyaasadeed iyo xisbiyadu iyo marxaladda labaad oo tartanka loogu soo koobayo 3 xisbi qaran si looga badbaado inay bulshadu u kala jajabto qaybo badan oo uu sabab u noqon karo qaab dhismeedka qabaliga ah ee aan ka soo jeedno nasiib darro waxa ay xukuumadihii kala dambeeyay ay meesha ka saareen awooddii sharciyeed ee guddidii ansixinta iyo nidaamka axsaabta qaranka ku korjoogtayn lahaa geedi socodka howlaha xisbiyada qaranka si looga badbaadiyo in uu noqdo xisbigu mid kooto ugu jira cid gaar ah ama u adeega dana shisheeye waxaa kaloo wax laga xumaadaa in xukuumaddii ku soo beegantay waqtigii ugu horreeyey ee dib loo furi lahaa tartanka ururada siyaasadeed ay isku dayday in hor istaagto taasoo sababtay kacdoon siyaasadeed oo baahsan oo si wada jira ay u hogaaminayeen ururkii qaran iyo xisbiga kulmiye ugu dambeyntiina keentay in dalka ay la wareegto xukuumad uu garwadeen ka yahay madaxweyne Siilaanyo wax ka bedel iyo kaabisna ku samaysay xeerkii hore iyadoo tixgelinaysa shuruucda dalka iyo rabitaanka shacbi weynaha dhaqan gelisana xeer 14/11 xeerkan oo ah waqtigan xaadirka ah kan ay maxkamadda dastuuriga ah qaraarisay inuu dhaqan gal yahay doorashaduna noqoto mid toos ah si aanay xuquuqda muwaadinku ugu dabranaan doorashada golaha deegaanka arrintaana 3 xisbi qaran ay wada aqbaleen mana jirto baahi siyaasadeed baahi sharciyeed oo loo qabo in xeerkan dib loogu soo cesho golayaasha sharci dejinta si loogu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis maadaama oo xeerarka doorashooyinka dalku qeexayaan waxaa loola jeedo doorasho toos ah
waajibna tahay in loo hoggaansamo qaraarka maxkamadda. xeer 14 2011 waxa uu waajibinayaa in diiwaangelinta ururada siyaasadeed ay bilaabmayso 6 bilood ka hor 10kii sanaba mar intaanay dhicin liisamada saddexda xisbi qaran ee waqtigaas jira, isla mar ahaantaana ay saddexda xisbi ee jira iyo ururada cusub ay u wada tartamayaan ciddii noqon lahayd saddexda xisbi ee 10ka sano soo socda hana qaadi lahayd. xaqan u yeelanaya iyaga oo keliya ka qaybgalka doorashooyinka qaranka sida madaxtooyada, deegaanka iyo wakiilada. howlgalka diiwaangelinta ururada iyo tartanka xisbiyada iyo ururada waxa uu xeerkan u qoondeeyay 6 bilood gudahood si loo xaqiijiyo in la helo xisbiye cusub, taasoo dalka ka badbaadinaysa jiritaan la'aanta xisbiye siyaasadeed. isla xeerkan qodobkiisa 11aad farqadiisa 4aad waxa uu muujinayaa in marka la furo tartanka ururada siyaasadeed ay xisbiyada qaranku galayaan marxalad kala guur oo ku meel gaar ah, taasoo meesha ka saaraysa xayndaabka xisbinimo una madax banaynaysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka inay furan karaan ama geli karaan ama u guuri karaan urur ama xisbi kale. waxaa xusid gaar ah iyo bogaadin mudan hoggaanka kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye oo mar walba horiyaal ka noqday dhaqangelinta xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin inay ururo siyaasadeed furtaan, una bareeray halista inay sidii xisbigii udub saaxadda ka bixi karaan. waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa in xilligii xeerkan 2011 lagu sameynayay kaabista iyo wax ka beddelka aanu madaxweyne Muuse Biixi wax awooda oo toos ah iyo mid dadban oo faragelina ku lahayn, balse xilligaas uu isaga laftigiisu la daala dhacayay cadaadis siyaasadeed. waqtigan xaadirka ana ka madaxweyne ahaan dastuurku farayo inuu fuliyo dhaqangelinta xeerarka dalka. mudanayaasha golaha wakiilada oo ah golaha koowaad ee sharci dejinta waxaa loo dhaariyay inay daacad u ahaadaan dalkooda ee looma dhaarin inay difaacaan dan xisbi iyo tu shakhsi toona. waxaanu u soo jeedinaynaa inay garowsadaan mudnaanta dastuurka iyo xeerarku siinayaan furista ururada siyaasadda waqtiga loo qoondeeyey, taasoo waajibinaysa inay ka soo horumarto doorashada madaxtooyada sida uu qeexayo xeerkan. furashada ururada waa masiir lama taabtaan ah oo dastuurka iyo xeerarka dalku u damaanad qaadeen muwaadiniinta ee ma aha arrin u taalla qof, qabiil iyo xisbi toona. waxaa baryahan jira muran siyaasadeed oo isu soo taraya, dulucdiisuna tahay in xuquuqdaas laga duudsiyo muwaadiniinta, taasoo hagardaamo ku noqon karta nabadda, wadajirka iyo xasiloonida. anigu waxaan dhowr jeer oo hore qayb ka ahaa tartanka ururada siyaasadda, haddiise aan haray waqtigaas waxa aan dugsaday dulqaad iyo inaan xakameeyo tabashadeeda, maadaama oo aan xogogaal u ahaa dhibta ay shalay ummadani soo martay iyo duruufaha adag ee ay ku sugan yihiin. waxaan aaminsanahay in cid kasta oo la himilo inay maalin un dalkan hogaamiso ay tahay inay badsadaan sabirka iyo isu tanaasulka si ay berri u helaan dal iyo dad nabdoon oo ay xukumaan. beesha caalamka oo ka taageerta Somaliland doorashooyinka waxaan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan shuruucda dalka iyo rabitaanka shacbiga oo ah taa aan war-saxaafadeedka u qabanay. inkastoo ay jiraan galdaloolooyin iyo qabiyooyin wax badan oo aan qabsan kari lahayn, haddana waxaan ku qanacsanahay in qaranka Somaliland uu samaynayo horumar la taaban karo, isha caalamkuna inoo soo jeesatay, mudan tahayna in ilaahay lagu mahadnaqo marka loo eego mandaqada dalkeennu ku yaal iyo xaaladda ku sugan yahay.